qof kasta oo adduunkan ku nooli waxa uu leeyahay riyo. riyadaas oo ah mid ku weyn noloshiisa wuxuu u sameeyaa si uu gaadho riyadaas wax kasta, wuxuuna ku bixiyaa awoodiisa oo dhan gaadhisteeda. waxaase xaqiiqo iyo biyo kama dhibcaan ah inay isku sidkan yihiin wuxuu Allah noo qoray iyo waxaan hadafka ula baxnay ku abuuranay maskaxdeena. shaygaasi haddii uu yahay mid la aqbalay oo xagga Alle ka suurta galay inaan gaadhno, waxaan dhahnaa waan guulaysanay. haddiise uu ahaa mid aan xagga Alle ka suurta gelin, waxaan dhahnaa waan qasaarnay oo guuldarraysanay. iyo Melanie waxay ahayn lamaano u dhashay waddanka Ingiriiska. waxay isguursadeen sanadii 2009. guurkooda kadib waxay muujiyeen jacayl badan iyo nolol cid kasta la dhacday quruxdeeda. family kastaana timaniyo inay u noolaadaan sidooda oo kale mar uun. waxaa u dhashay ilmihii koowaad oo ay ku koriyeen farxad iyo kolkoolin saa'ida. muddo kadib maxaa dhacay? waxaa calool galay ilmahooda labaad. Melanie waxay ahayd gabadh mas'uul ah, awoodna u leh maareynta familkeeda iyo ubadkeeda, xanaaneynta ninkeeda iyo daryeelka qoyskeeda intaba. waxay si joogto ah u booqan jirtay isbitaalka si ay xaaladda uurkeeda ula socoto maalinba maalinta ka sii dambaysa. muddo kadib waxay dareentay awoodda culayska ilmaha ay uurka ku sido oo ka badan miisaanka saxda ah ee qiyaasta muddo ilmo jira 7 bilood oo kaliya. wuxuuna u sheegay doctorku inay sabab u tahay waxyaalaha qabow ee badan ay cunayso sida sharaabka, cunooyinka barafku weheliyo iyo waxyaalaha kale ee qabqabow. waxaa la gaadhay waqtigii foosha, waxaana la dhigay isbitaalka. waxaa ka soo daraysa xaaladeeda caafimaad. waxay bilowday durbadiiba inay suuxdo, taasoo dhakhaatiirtu ku dadaaleen laakiin waxba ka qaban la'aayeen. sensoriskii iyo qalabkii muujinaya dhaqdhaqaaqa caafimaadka iyo xaaladeeda ayaa bilaabay inay isu beddelaan casaan. alarmigiina wuxuu bilaabay inuu dhawaaqo, qayladhaantuna isgaadho, taasoo la macno ah in xaaladdu ay sii xumaanayso marba marka ka sii dambaysa. baadhis degdega kadib waxay dhakhaatiirtu ogaadeen inuu ku dhacay wadna xanuun saa'ida, taasoo sababay ambiyootic embolism oo ah dareeraha xabka ama ku gadaaman makaanka oo raacay qulqulka dhiigga. tan oo ay lahayd sababteeda naxdinta falcelinta kaga timi dhanka doctorka kadib markii uu sheegay qofka caloosheeda ku jira inuu ka wan yahay sidii saxda ahayd, taasoo ku keentay naxdin, barashar fara badanna ku furtay wadnaheeda, keentay inay qalqal gelisay makaanka iyo wadnaheeda iyo dhammaan jidhkeeda oo dhanba. kadibna waa taago amniotic embolism oo ah dareeraha makaanka ku gadaaman inuu dhammaanba gebi ahaan raaco qulqulka dhiigga. ma ahayn kiis iyo dhacdo ay hore u arkeen shaqaalaha isbitaalka dhammaantood, waxaanay u direen isbitaallo kale oo ka sii wanaagsan si ay ugu yaraan loo badbaadiyo ilmaheeda. waxaana lagu guulaystay qalliinka ilmaha yar lagaga soo badbaadiyey isaga oo bad qaba. hase ahaatee waxaa sii xumaatay xaaladda gabadha, taasoo warwar ku abuurtay dhakhaatiirta, ninkeeda iyo faamilkeeda intaba. jawiga oo dhan ayaa ahaa mid qasmay, halka Melanie ninkeeda uu gaadhay qoys isagoo garwaaqsaday inuu waayay jacaylka noloshiisa iyo hooyada carruurtiisa labadaba. waxaa istaagay dhammaan dhaqaaqa jidhkeeda. waxaa loo aaminay inay dhimatay. waxaa cir ka ahayd rajada ay ku sii noolaan karto iyadoo murugta iyo ilmada ninkeedu qoysay dharkeeda. wuxuu leeyahay Doug oo ahaa Melanie ninkeeda. waxaa dibadda buuxdhaafiyey qaraabada iyo faamilka sida ubaxyada quruxda badan ee qoyan si ay u arkaan farxadeena ilmaha yar iyo gabadha oo caafimaad qaba, balse ma ay jirin sabab aan ku gudoomo ubaxyadaas. waxaa loo soo daayay dhammaan dadkii dibadda tubnaa, kuwaasoo macasalaameeyey una asteeyay inay dhimatay gabadhu mar hore oo ka quustay. arrintaa ayaa gilgishay qalbiga Doug oo ahaa Melanie ninkeeda, isagoo u dhawaaday garabkeeda, dhunkaday oo kuna yidhi, waxaa kuu baahan ilmahaaga iyo qofkaad bartay sida loo farxa labadaba. haddii aad leedahay awood aad uga gudbi karto xanuunkan, waan ku sugaynaa labadeeduba.
waxaase dhacday arrin mucjiso leh oo dhammaan ka yaabisay indhihii goobjoogayaasha dhacdadan argagax gelisana dhakhaatiirtii kadib markuu wadnuhu bilaabay inuu sameeyo dhaqaaq mar kale. waxay sheegeen inay ku qaadatay 24 saacadood inuu dhaqaaq macquul ah sameeyo wadnaheedu, taasoo halis gelin kartay rajada laga qabo inay caafimaado. hase ahaatee wixii dhacay oo dhan kadib, Milan waxay bilowday inay kala qaado indhaha. ereygii koowaad ay ku dhawaaqdaan wuxuu noqday magaca ninkeeda. waxay dhakhaatiirtu in badan garbaha ka garaaceen Doug, iyagoo le way dhimatay, iska samir, lagama yaabo inay kacdo mar kale, balse way kacday. waxaana isbedeshay 24 saacadood kadib xaaladda oo dhan. wuxuu isla markiiba tusay sawirka inanta u dhalatay ee Gabriel, oo ah mid ku dhalatay xaalad khatar ah. waxaa ilmeeyey indhaha Milani, waxaana uu sheegay inay guulaysteen maanta oo aan loo baahnayn inay ooyaan, isla markaana uu hore u soo ooyay wax badan. wuxuu bilaabay haddana inuu aamino mucjiso kale oo ah inuu ka joojiyo kiniinka ama waxa drugska ee lagu mudayo. 7 casho kadib oo keliya khudaar mooye aan wax kale la siinaynin, waxaa si weyn u midoobay qalbiyeed jecel, faamil buuxa iyo qoys dhammaystiran oo ku laabtay guryahoodii, waxaanay sii wateen noloshooda. kadib bogsashada Milani, dhalashada Gabriel iyo farxadda Doug, waxaa dib u mooday qoys dhammaystiran. muddo sanada kadib waxaa laga waramay inay soo saareen buugga la magac baxay Gabriel Tough Moments. intaana waxaa inoogu dhan qisada murugada iyo farxadda midaysa ee Doug Family. fadlan haddaad nagu cusub tahay, subscribe channelka, like muuqaalka, hana ilaawin inaad share garayso oo la wadaagta asxaabtaada kale.